بسم الله الرحمن الرحيم قلب وناكسن خيارتنا لا سقطت جمعة صوبان ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaan waa 12 December sanadka 2025 idilkiinba meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tabin kale oo kamid ah barnaamijka qubanaha Barrow Show qodobo weyn ayaan idin hayaa oo la yaabkeeda leh Israel iyo Turkiga waxa ay ku loolamayaan goobta istiraatiijiga ah ee ku taala Soomaaliya. Toddobaadkan labada nidaamba waxa ay soo jeediyaan warar kala duwan oo dhammaantood taabanaya Soomaaliya. Mar Israel ayaa ka walaacsan xaaladda Turkiga iyo dhaqdhaqaaqyada gantaalaha uu ka wada Soomaaliya iyadoo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuraha dibadda horeysi ay bixisay ay ku tilmaantay in dawladda Soomaaliya ay xiriir kala sameeyeen arrimaha gobolka istiraatiijiga ay ku yaalaan iyo waliba sidii loola dagaalami lahaa kooxaha argagixiso. Dhinaca kale maanta dawladda Turkiga ayaa ka hadashay halka uu marayo saldhigga ay ka dhisayaan goobta ku dhow dhulbaraha Soomaaliya ujeedadiisuna ay tahay in ay ka tuuraan gantaalada iyo dayax gacmeedyada. Arrintan ilaa iyo saameynta leeg ayaa laga yaabaa loolanka geeska Afrika inay ku soo kordhiso maadaama labadan dhinac ay ku loolamayeen gobolka Bariga Dhexe. Warbixin xasaasi ah ayaan arrintaasi idinkaga hayaa oo qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn ee adduunku ay qorayaan khiyaartayna la socotay. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa la filayaa in uu booqasho ku tago magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar. iyadoo dawladda Mareykanku ay ka shaqeynayso in Sisi halkaasi uu gaaro si uu u saxiixo dalab dawladda ay hordhigtay Netanyahu halkaasi tago si uu u saxiixo dawladda dalab ay Sisi ay hordhigeen la rabo inuu hirgeliyo ka hor shirka la filayo inuu ka dhaco gobolka Florida ee waddanka Mareykanka oo ay yeelan doonaan 3 hogaamiye oo kala duwan. Dawladda Ingiriiska waxay cunaqabatayn ku soo rogtay marka la fiiriyo ilaa iyo 3 sargaal oo sarsare oo Abu Lu'lu ka mid yahay ninkii Al-Fashir dadka ku baabiinayay oo ka tirsan kooxda RSF-ta waddanka Suudaan. Markan waxay u muuqataa Imaaraadka weerar la isku bahaysanayo in ay la kulmayaan iyadoo kooxda ay ka taageerayaan waddanka Suudaanna cunaqabatayn ay la kulmayaan. dadka cunaqabataynta lagu soo rogay hogaamiyaha sare ee Daesh RSF-ta ama Dacmu Sariic walaalkii ayaa ka mid ah. Warbaan idinka sii doona warka ka soo baxay dawladda Ingiriiska oo arrimahaasi sidoo kale ku saabsan. Dawladda Eritrea mar labaad ayay go'aansatay inay isaga baxdo urur goboleedka IGAD kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ururka garabgelis u noqday dawladda Ethiopia oo waddankaasi ama ururkaasi uu ku dhax shaqeeyo xilli xiisada u dhaxaysa dalalka Ethiopia iyo Eritrea ay kor u sii kacayaan. tani waxa ay noqonaysaa caqabad kale oo urur goboleedka IGAD uu hadda wajahayo xilli gobolka geeska Afrika uu u muuqaal ekaanayo gobolka Bariga Dhexe. Khiyaarteena la socotay qodobadaas ayaan eegi doonaa iyo warar kale oo ku saabsan diblomaasiyadda iyo siyaasadda gobolada Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika. Cabdicasiis Barrow ayaan ahay ku soo dhawaada iyo nidaamka Israel waxa ay ku loolamayaan gobolka geeska Afrika iyadoo dagaalkoodii gobolka Bariga Dhexe oo haatan u muuqanaya in uu soo gaaray dalka Soomaaliya. Toddobaadkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuraha dibadda ee nidaamka Israel ayaa wareysi ay siisay telefishinka iNews ee Israel laga leeyahay waxa ay ku tilmaantay in marka la fiiriyo mowqaca istiraatiijiga ay ku taala Soomaaliya ay xiriir la sameeyeen dawladda Soomaaliya. inkasta oo Israel iyo Soomaaliya aysan ka dhaxayn cilaaqaad diblomaasi oo ballaaran Soomaaliyana aysan Israel u aqoonsanayn dal buuxa haddana waxa ay muujisay Israel inay jiraan wada hadal labada dhinac dhexmaray oo ku saabsan sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixiso gaar ahaan dhinacyada ka dagaalamaya Soomaaliya iyo waliba in la kala jaro xiriirka kooxda Xuutiga ay la leeyihiin. arrintan oo Israel ay ku tilmaantay in hadda ay meel fiican wax u marayaan. horey sargaal amni oo Israa'iili ah sidoo kalena la taliye ka ah dawladda Ra'iisul Wasaare Netanyahu ayaa walaac ka muujiyay gantaalaha ay Israel walaaca ku haya oo
Soomaaliya laga tijaabinayo kaas oo Turkiga haatan ay ka shaqeynayaan sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale hadal oo qoraal uu baahiyo uu ku tilmaamay ninkaasi in dawladda Soomaaliya ay walaacooda horay u gaarsiiyeen fila Soomaaliya ma jiraan wax wara oo ka soo baxay oo ku saabsan wararka dulduulka ah oo ka imanaya diblomaasiyiinta sare ee nidaamka Israa'iiliyiinta ka tirsan dhinaca kale wariyaha waraysiga qaadayay ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil waxa uu weydiiyay ma jiraan wax xiriir ah oo idin kala dhaxeeya Soomaaliya sidaas wada hadalkiina uu ahaa waxa ay ku tilmaantay in guud ahaan baqaarada oo ay ula jeeda Afrika uu xiriir fiican kala dhaxeeyo waxana uu yiri waxa lagu darayaa arrintaasi Soomaaliya inaad xiriir la leedahay oo ka tirsan wadamada jaamacadda Carabta iyo waliba dunida Islaamka intaba oo haatan Israa'iil aysan isku fiicnayn inta ay hadalkeedii si kala u dhigtay ayay wasiir ku-xigeenka amuraha dibadda Israa'iil waxay ku tiri ha uu jira xiriir taas oo muujinaysa hadalkan in gabadhaasi si ku talagal aan ahayn ay warbaahinta uga soo saareen dhinaca kale ma jiraan wasaaradda amuraha dibadda war ka yimid ilaa iyo hadda oo sheegashadaasi rumaynaya ama beeninaya ee ku saabsan in uu jiro xiriir kala dhaxeeya Israa'iil iyo wada hadal soconaya oo ku saabsan iskaashiga wararkaasi soo baxaya dhinaca kale dawladda Turkiga ayaa qudheeda maanta ka hadashay halka uu marayo saldhigga ay doonayaan dayax gacmeedyada iyo gantaalaha inay ka tuuraan ay ka dhisayaan Soomaaliya meel ku dhow dhul baraha inkasta oo aan la cayimin goobta saldhiggaasi uu ku yaalo dawladda Turkiga waxa ay shaacisay baaliri in hadda uu ku jiro marxalad dhismo ah saldhigga hawada sare ee Soomaaliya ee dawladda Ankara ay ka shaqeynayso madaxa tiknoolajiyadda ee shirkadda Baykar ninka lagu magacaabo Selk Bayraktar ayaa sheegay in ay tani noqon doonto fursad cusub oo labada dal fursad u furaysa baaliri bog cusub oo ku saabsan tiknoolajiyada cirka iyo hawada sare taas oo hadda ay si weyn isaga kaashan doonaan ninka waxa uu sheegay saldhiggan in uu si wada jira ay u adeegsan doonaan Roketsan oo Turkiga laga leeyahay iyo shirkadda la yiraahdo Vergani Space oo kamid ah shirkadaha wax soo saarka tiknoolajiyadda ee wadankaasi Turkiga uu leeyahay marka la fiiriyo goobahan oo kale 12 ayuu dunida ku taala ayuu yiri mid kamidana waa Soomaaliya waliba Soomaaliya waa meesha ugu fiican ee saldhiggaasi laga sameyn karo gantaalaheena ayaan halkaasi ka tuuri doonaa inagoo sameynayna buu yiri wax kasta oo gaarsiinaya horumar labadan wadan halkaasina laga adeegsanayo waxa uu ka hadlay xaflada lagu qabtay magaalada Istanbul oo ay ka dhacaysay madasha la yiraahdo Teke of Istanbul taas oo ah madal si weyn dawladda Turkiga ay ugu soo bandhigaysay wax soo saarkeeda dhinaca tiknoolajiyada maanta oo Jimcaha waxa uu yiri Soomaaliya ayuu ku tilmaamay meesha ugu wanaagsan ee laga gani karo dayax gacmeed adduunka waxa ka jira 12 goob oo noocaas ah mid kaliya ayaa hartay midda ugu wanaagsanna waa kan Soomaaliya oo laga hirgelinayo hadda dawladda Turkiga ayaa halkaasi ka bilowday dhismaha ayuu ninkan u sheegay warbaahinta sidoo kale waxa uu sheegay in saldhigga hawada sare ee Soomaaliya uu cabirkiisu yahay 30 lagu dhuftay 30 kilomitir taasi oo muujinaysa dhulkaasi baaxadda uu leeyahay xilli dawladda Soomaaliya aanay wali bixinayn wax faahfaahin oo ballaaran oo ku saabsan arrimahaasi hasaatee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore dhowr goor hore u dulmaray si korkaxaadisa marka la fiiriyo saldhiggaasi hadda Turkiga uu Soomaaliya ka wado durbaba Israa'iil ay dareentay in uu qatar weyn ku yahay marka la fiiriyo ninkii u hadlay Israa'iil oo sheegay lagu magacaabo ayaa hore u sheegay in saldhiggaasi marka la fiiriyo halka Soomaaliya ay ku taalo ay bad ahaan u jirto halka Iiraan ay ku taalo markastana qatartiisu ay ballaaran karayso Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa la qorsheynayaa in uu booqdo magaalada Al-Qaahira ee caasimadda wadanka Masar kulan xasaasi ayaa la filayaa halkaasi inuu ka dhaco waxaana uu ku saxiixi doonaa heshiiska gaaska dabiiciga ah ee Masar kaasi oo ku kici doona 15 bilyan oo dollarka Mareykanka
arrintani waxa ay ku timi in cadaadis dheeraada Israa'iil ay kala kulantay dowladda Masar sida ay ku waramayaanba qubarada kala duwan ee halkaasi ka waramaysa. wargeyska The Times of Israel ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu qorsheynayo in uu booqdo magaalada Qaahira si uu la kulmo madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi una saxiixo heshiis cusub oo ku saabsan iibka gaaska dabiiciga ah. ila diblomaasiyadeed oo Mareykan ayaa horey u sheegay in mas'uuliyiinta Israa'iili ay maalmahan wadeen diyaarinta booqashada iyagoo kaashanaya diblomaasiyiin Mareykan ah oo sare sida lagu sheegay warbixinta. Netanyahu waxa uu rajeynayaa in heshiiskan uu noqdo guul siyaasadeed iyo mid warbaahineed labadaba uu ku muujinayo doorashadiisa ka hor si uu uga weeciyo indhaha shacabka arrimaha gudaha oo iminka dhaliilo fara badan uu kala kulmayo marka la fiiriyo xiisadda gudaha Israa'iil ka taagan. ilaha diblomaasiyadda Mareykanka ayaa sare u qaaday sheegashada mas'uuliyiinta Israa'iiliga ay maalmahan wadeen diyaarinta booqashada iyagoo kaashanaya diblomaasiyiin Mareykan oo heer sare ah sida lagu sheegay warbixinta Netanyahu laga diyaariyay. waxaana ay rajeynayaan in heshiiskan uu noqdo guul siyaasadeed iyo mid warbaahineed oo uu ku muujinayo arrimihiisa dadaalka. ila ka tirsan xafiiska Netanyahu ayaa u sheegay The Times of Israel wargeyska ka soo baxay Israa'iil in wali aan xog dhameystiran laga hayn qorshaha booqashada oo wax badan oo kale ay qarsan yihiin. sida lagu xusay warbixintu waxay muujinaysaa in Mareykanku uu qorsheynayo shir saddex geesood ah oo kale oo dhaxmari doona madaxweyne Trump, Sisi iyo Netanyahu kaasi oo lagu wada inuu ka dhaco gobolka Florida dabayaaqada bisha December oo aynu hadda ku jirno. safiir Mareykan oo Israa'iil jooga ayaa sheegay in dowlado fara badan ay indhaha ku hayaan arrintan iyadoo la eegayo wixii ku soo kordha tilaabadan. Netanyahu ayaa 2 jeer si rasmi ah u booqday magaalada Qaahira mar waxay ahayd sanadkii 2011 xilligaasi uu talada wadankaasi hayay Maxamed Xusni Mubaarak, halka mar kalena la sheegay in uu booqday hase ahaatee booqashadaasi ma ahayn mid la shaaciyo oo banaanka u soo baxday. dhinaca kale Masar iyo Israa'iil ayaa xiriirkooda hoos u dhacay tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii sanadkii 2023 Oktoobar ka bilowday gobolka Bariga Dhexe, taasoo Israa'iil dhowr jeer oo kala duwan ay cadaadis saartay dowladda Masar. dalka Ingiriiskana waxa uu 3 xubnood oo ka tirsan kooxda dacmu sariic uu ku soo rogay cunaqabateyn dhinaca socdaalka iyo dhaqaalaha ah. waxaa ka mid ah mas'uuliyiin sarsare uu ka mid yahay walaalka hogaamiyaha kooxdaasi Dagalo ninka lagu magacaabo. sidoo kale liiskan ayaa waxaa ka soo muuqday Abu Lu'lu oo ka mid ahaa nin timo badnaa oo isagoo dad alfaashir ku laynaya ay muuqaalo duubeen. hase ahaatee arrimahan marka dhinaca kale loo aqriyo waxa uu noqonayaa jab diblomaasiyadeed iyo waliba dadaalkii Imaaraadka ka soo gaaray dagaalada ka soconaya gudaha wadanka Suudaan. dowladda Ingiriiska ayaa maanta oo Jimcaha ku dhawaaqday in cunaqabateyn ku soo rogtay 4 saraakiil oo ka tirsan ciidamada taageerada degdega ee RSF-ta ee wadanka Suudaan, kuwaas oo horey loo oran jiray maleeshiyaadkii Janjaweed, kuwaas oo lagu eedeeyay falal dilwadareed ah, kufsiyo qorsheysan iyo weeraro toos ah oo lagu qaaday dadka rayidka ah. ku-xigeenka hogaamiyaha RSF-ta Cabdiraxmaan Xamdaan Dagalo oo ah walaalka hogaamiyaha kooxdaasi Maxamed Xamdaan Dagalo Xamiidi ayaa la sheegay inuu ka mid noqday saraakiisha cunaqabateyntan ay ku soo rogeen dowladda Ingiriiska, kuwaas oo la sheegay in 4 kale oo sargaal la xanibi doona hantidooda isla markaana lagu soo rogi doona xayiraado dhinaca safarka. sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay dowladda Ingiriiska, saraakiishan ayaa lagu daray liiska cunaqabateynta waxaana ay kala yihiin Jiid Xamdaan Axmed, taliyaha RSF-ta ee waqooyiga Darfur, Fatix Abdallah Idris Abu Lu'lu, sargaal darajo sare leh oo RSF-ta ka tirsan kaasi oo la arkay isagoo dad gumaadaya, Tijani Ibrahim Musa Muhammad, taliya ku-xigeenka ku sugan aagaga dagaalka kaasi oo ka mid ah saraakiisha muhiimka ah ee kooxdan,
ingiriiska waxa uu ku eedeeyay saraakiishan inay si ula kaca u beegsadeen dadka rayidka gaar ahaan magaalada Al-Fashir ayna ka geysteen xadgudubyo ku salaysan jinsiyad iyo diin weerar ka dhana shaqaalaha caafimaadka gargaarka kufsiyo nidaamsan afduub lagula kacay dad isla markaana lacaga magac furasho laga dalbaday iyo waliba xiritaano aan sharci ahayn oo dadka la iska afduubanayay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Britain ayaa sheegtay in xadgudubyada ka socda wadanka Suudaan ay yihiin kuwa argagax leh oo dhaawacaya qiyamka damiirka caalamka loona baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto dowladda UK waxa ay sidoo kale ku dhawaaqday 21 milyan oo gani oo gargaar bani'aadanimo ah oo lagu caawinayo dadka ku dhibaataysan qaybo ka mid ah dalka Suudaan gaar ahaan haweenka iyo carruurta dhinaca kale salaasada aynu ka soo gudubnay Mareykanka ayaa ku soo rogay cunaqabateyn kooxa lagu eedeeyay in ay hurinayeen dagaalka wadanka Suudaan oo ay ku jiraan shabakad la sheegay in ay diyaariso isku xirnaantan kuwaasi oo ka soo jeeday wadanka Colombia dowladda Imaaraadkana la sheegay in ay ku bixinaysay dhaqaalihii ugu badnaa ugu dambeyntiina madaxweynaha wadanka Eritrea Asiyaas Afwerki ayaa maanta qaatay 25 sanadood kadib dagaalkii baadhama oo Itoobiya la galay go'aan kale oo xasaasi ah oo taabanaya mandiqada Geeska Afrika iyo waliba urur goboleedka IGAD Afwerki ayaa waxa uu tilmaamay in guud ahaanba wadankiisa uu isaga baxay xubinnimadii uu ka ahaa urur goboleedka IGAD kadib markii la sheegay ururka inuu garabgelis u noqday wadanka Itoobiya uu hadda si weyn ugu dhax shaqeeyo horay ayaa sidaan oo kale dowladda Eritrea waxay ugu dhawaaqday in sanadkii 2007 ay ka baxday xubintii ay ka ahayd ururkaasi oo ay ku biirtay sanadkii 1993 markii la yabyabay dowladda Eritrea oo ay ka go'day dalkii la isku oran jiray Itoobiya xilligaasi wixii xilligaasi ka dambeeyay dagaaladii ay dowladda Eritrea gashay waxay u muuqanayeen in ay si uga ganacsaneyd ururkaasi iyo waliba nidaamkiisa wasiirka amuraha dibadda wadanka Eritrea ayaa qoraal maanta uu soo saaray waxa uu ku tilmaamay urur goboleedka IGAD in uu gabay shaqadiisii macno beelay isla markaana uusan hadda lahayn wax qiimo oo dowladda Eritrea ay uga sii mid ahaato ma jiraan ilaa iyo hadda war ka soo baxay urur goboleedka IGAD iyo dowladda Itoobiya oo eedeymaha ugu badan hadda dusha looga tuurayo khiyaarta inala socotay intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa qaybta koowaad ee maanta iyo qubanaha Barrow Show Cabdicasiis Barrow ayaan ahay jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay soo dhawaada mar kale ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar